barasaabka gobolka saaxil iyo maayirka magaalada Berbera ay weheliyaan mas'uuliyiinta rugta akhriska ee Berbera Public Library ayaa kala wareegay hay'adda khayriga ee Amuud Foundation container ay ku jiraan kombuyuutarro iyo buugaag goobta lagu kala wareegay agabkan oo ahayd gudaha dekedda magaalada Berbera ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay Cabdiwahaab Cige oo ku hadlayay afka hay'adda Amuud Foundation waxaanu ka warbixiyay containerkan iyo qalabka kala duwan ee ku guda jira waxa iyaguna geestooda u mahad celiyay isla markaana ku ammaanay hay'adda Amuud Foundation deeqdan ay soo gaarsiisay ee isugu jira buugaagta iyo kombuyuutarada maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Ismaan Xasan salaan kadib maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa container iskugu jira buug iyo kombuyuutarro iyo waliba Britaaniskii oo ay library-ga Berberaad ay ku deeqday hay'adda Amuud Foundation runtii buugtaas waa buug qiimo badan oo loogu talagalay in library-ga ay ardayda gobolka Saaxil ay uga faa'iideysan doonaan iyo dhammaan dadka educatorska ah ee gobolkan jooga waxay ka dambeysay containerkan inuu yimaado markii uu gudoomiyaha hay'adda Amuud Foundation soo booqday halkan ee uu maaragtay gudoomiyaha degmada halkan agteeda taagan Cabdishakuur uu weydiiyay in library-ga ka caawiyo kombuyuutarada iyo buugta lagu akhrisanayo ee ardayda jaamacadda ay ku akhrisan doonaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo dalabkaygii aanu weydiisanay ee aan u bandhignay ee uu ka jawaabay ee weliba uu ku qancay inaanu hayno hanti taan ku dalbana mid ka badan inaan hayno waxaan leenahay gudoomiye waxba ku ammaani mayno waxna ku faani mayno waxa Ilaahay dartii baad ula baxday anaguna halkii ku habooneed baan gaarsiinaynaa dadka reer Berbera ee degmadan degan iyo gobolka Saaxilba himiladeedu waxa weeyaan in qof kasta oo reer Berbera waxna qoro waxna akhriyo inuu heli karo goob uu wax ka wixii ka dheeraaday uu gaari waayo goob uu ka heli karo waxa qorshaha aan degmada ku daraynaa oo insha Allah qorshaha ay kamid ah in iskuulada dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadaha inaan u sameeyno library markay buugtani soo farabadataba inaanu ka faa'iideyno gobolka dhangeeno iskuuladan ku bilaabi doonaa iyadoo ay gudida maamusha library-ga maxaan ku raacdaa oo iyadu heer gobol aan heer degmaan ahayn ay maamuli doonto goob walba iskuulada waxaan ku dari doonaa halkan class ka dareno inaanu class ugu darno sana library-ga iyo kombuyuutarada iyo biritinada isugu jira oo ahaa runtii sida horeyba looga dhawaajiyay ballanqaad hore ama codsi hore oo maamulka degmada maayarka iyo xubnaha guddiga maamula ee library-ga ka yimi inay baahi u qabaan wax kasta oo xagga buugaagta oo loo keeno oo Amuud Foundation ka codsadeen jawaabtii oo laga soo jawaabay waynu hadda halkan kula wareegaynaa ka gudoomaynaa library-ga maxaa ku degmada Berbera gobolka Saaxil waxa horta buugaagtaasi marka la dhigo wuxuu leeyahay guddi aad u dhowra ilaaliya xafida agab kasta oo wax akhris oo la soo gaarsiiyo si nidaamsan qofkii tagay baa arkaya waxa muhiim noo ah ama hadafkayagu uu yahay in qof kasta oo Berbera yimaaday uu ka helo halka buugii uu akhri lahaa reer Soomaaliland ama ha noqdo ama Soomaali kale ha noqdo ama Afrikaan ha noqdo qof kasta oo bilaadan oo soo buuqda waxaan ku Berbera ama gobolka Saaxil waqtiga yar uu chance u helo inaanu ka waayin buugga akhri lahaa isaga raali gelin lahaa inaanu library-ga ka waayin hadafkeegu waa ka insha Allah waana ku guuleysan doonaa intii iridaha loo furay rugta akhriska ee Berbera Public Library waxaynu oran karnaa waxay wax weyn ka tartay isla markaana kor ay u qaaday tayada waxbarasho ee bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Berbera iyo guud ahaan gobolka Saaxil waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul Royal TV Berbera